السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سودة ولا ليال. مقال كان وحارب أنا نكون فلقينه سيدي ذهب أما قطب قفك مانيجر كا أما معمولها هي وهر مرين كرو إذا مركا كان بني سكه الجريسة مركا على شقينيسة muuqaalada soo socda ama maalmaha soo socda insha Allah waxay la wadaagi doonaa dhowr muuqaal oo aan halkan idinku soo gudbi doono mowduucyada aan xog saari doono insha Allah waa qodobka ganacsiga iyo leadership-ka ama hogaaminta iyo sidoo kale arrimaha marka la xiriira taariikhda waxaan rajeynayaa muuqaaladaas inaan wax badan insha Allah ka faa'iido doontaan muuqaalada insha Allah noo sii shargalay doonta asxaabta marka la sii wadaagi doonta hadii Ilaahay yiraahdo leadership-ka ama hogaaminta marka la yiraahdo dunida marka la fiiriyo waa kulliyad runtii aad muhiim u ah soo intaana muuqaalkeena u guda gelin ayaan waxaan rabaa inaan hal talo u soo jeediyo dhammaan jaamacadaha dalka iyo aqyaarta badan ee marka arrimaha waxbarashada ku foogan hadii markaas talada ay hirgelin karaan caalamka marka la fiiriyo leadership-ka waa kulliyad gaar ah ama takhasus gaar ah oo marka jaamacaduhu ay bixiyaan qarnigan boqolkiiba 45 leadership-ka dhalinyarada dunidu waxay ka bartaan qaaradda Aasiya sidaas oo kale boqolkiiba 25 dhalinyarada dunidu waxay leadership-ka ka bartaan qaaradda Yurub qaaradda Ameerika boqolkiiba 20 ayaa leadership-ka laga bartaa halka Afrika marka fiiriso kuliyadan takhasuskeedu uu boqolkiiba 10 oo kaliya marka uu yahay soo warbixinadan marka fiiriso warbixinada marka ay soo saarayaan hay'adda UNESCO ee qaabilsan arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka ee dunida marka la fiiriyo iyo World Bank soo Soomaaliya marka fiiriso jaamacadaha dalka inta aniga aan ka ogahay ma bixiyaan takhasus la yiraahdo leadership-ka badana hogaaminteena iyo takhasuskeena waxa uu ku dhex jira faculty kale marka waxa arkaysaa public administration waxa arkaysaa business administration iyo marka takhasusyo marka sida la mid ah sida siyaasadda oo kale marka jaamacadaha waxaan u soo jeedin lahaa in takhasuskaas bulshada ay u soo kordhiyaan maadaama Soomaaliya marka fiiriso dalkan waa dal kheyraad badan leh dadkiisu waa dad raba inay nolosha horumar ka gaaraan oo ay dunida marka la tartamaan laakiin waxa maqan waxa weeyaan leadership-ka ama cidii marka talada marka qaban lahayd inta marka hordhaca u deeyno kambaniyada dunida marka la fiiriyo waxay ku tartamaan waa wax soo saarkaasna cidda kaliya ee boqolkiiba 99 ka qayb qaata waa dadka marka kambaniga ka shaqeynaya saas darteeda markasta oo kambanigu cidda marka ka howlgalaysa la hormariyo la dhiirigeliyo waa markasta oo kambanigaasi isbedel marka uu sameyn karo marka fiiriso wadankan China waxyaabaha keena China muddo kooban inay ka hormaraan wadamada kale ee Europe iyo America waxa lagu tilmaamaa qodobkan ah inay marka dadka shirkadaha ka shaqeeya Chinese-ku inay ihtimaam gaar ah ka leeyihiin marka loo fiiriyo qaaradaha kale tusaale ahaan qofka ka shaqeeya shirkad China laga leeyahay hadii labada gel oo ka shaqeeyo oo gelin ka mid ah shaqadiisa la joojiyo qofka mushaarkiisa lama joojiyo lamana taabto laakiin shaqadii subaxdii gelinka hore ayuu ka sii shaqeysanayaa mushaarkiisuna waa u leeyahay halka marka fiiriso America ama qaaradaha kale hadii qofka shaqada joojiyo asagana marka waa la joojinaya sidaas oo kale China marka fiiriso habka loola macaamilayo qofka howlwadeenka ah ee kambaniga ka shaqeynaya ihtimaam gaar ah buu leeyahay waqti gaar ah buu leeyahay
daryeel gaar ah buu leeyahay sida waxaa loola macaamilayaa in shirkadda qofkaasi asagu uu leeyahay taladiisa waa la tixgelinayaa go'aamadiisa waa la qaadanayaa fikirka iyo warka hal abuurka uu soo bandhigana sidaas oo kale waa la tixgelinayaa shaqada marka uu qabtane waa shaqo meel loogu qorayo berri ka maalin lagu abaalmarinayo marka halkan waxaan isla fahmaynaa shirkadaheena maanta markaa fiiriso Soomaaliya ka jira qodobada ugu waaweyn ee u baahan inay xoog saaraan waxaa ka mid ah qodobkan waayo markaa fiiriso shirkadaha ugu waaweyn ee maanta dalka ka jira Soomaaliya oo kaliya ay ku ogyihiin halka aan arkayno shirkada maanta America laga leeyahay inay xarun ka furanayso Soomaaliya shirkada laga leeyahay qaaradda Yurub inay ka furanayso xarun Soomaaliya oo marka ay u gudbayaan hab international saas darteeda markasta oo cidda kambaniga ka shaqaynaysa la tixgeliyo la hormariyo waa markasta oo kambanigu marka uu hormarayo ama uu horumar iyo kobac sii samaynayo muuqaalkan kooban waxaan kula wadaagayaa ilaa 8 talaabo oo aan isleeyahay haddii qofka managerka ahi uu ku dhaqmo oo hirgeliyo in markaasi dadka marka kambanigiisa ka howlgalaya ay isbedel badan sameyn doonaan wax soo saar fara badan marka uu kambanigu marka helayo qodobka koowaad in la sameeyo abaalmarin maadaama dadka kambaniga ka howlgalaya shaqooyin badan ay qabanayaan in qof kastaba abaalmarin la siiyo ama intaasi ha ahaato mid bil ah ama ha ahaato mid 3 bilood ah ama ha ahaato mid sanad la ah hadba intii marka kambanigu marka uu awoodo abaalmarintaasi marka waxay cadeynaysaa qofka shaqada uu soo qabtay dhiirigelin inay u noqoto waxay cadeynaysaa in managerka iyo shirkadda dadka iska lahi ay ihtimaam iyo qadarin u hayaan cidda marka shaqada qabanaysa laakiin haddaan qofka la dhiirigelin wax qabadkiisa haddaan la qiimeynin oo shaqadu ay iska socoto marka qofku uu niyajabaya marka waa talada koowaad talada labaad in la siiyo habka la yiraahdo dallacsiinta waxaad arkaysaa qof kambani 6 sano jooga ama 5 sano ka shaqaynaya laakiin hal goob oo kaliya fadhiya soo taasi niyajab aad u daran bay muujinaysaa marka in qofka la sameeyo jaranjar oo marka uu wax qabad fara badan sameeyo la yiraahdo jaranjartan baad gaaraysaa taasi waxay ka saacidaysaa in qof kastaba uu dadaal fara badan muujiyo si markaas darajadii loo tilmaamay in marka uu gaaro marka in la sameeyo dallacsiin waa hababka ugu muhiimsan ee marka loo dhiirigeliyo dadka marka kambaniyada marka ka shaqaynaya waxa arkaysaa kambani aan hadda dallacsiin sameynaynin laakiin haddana rabo inuu kambaniyada kale ee suuqa kula jira inuu marka la tartamo soo sidee suurtagal u ahaanaysaa marka soo macquul maaha talada saddexaad waxa weeyaan in dadka kambaniga ka shaqaynaya la siiyo xornimo ku filan shaqada in loo xornimo la siiyo in yani cadaadis fara badan la saarin in haddii maanta problem uu qabsado kale problem family ha ahaato oo codsi weydiisto kale in shaqada marka laga fasixi karo in yani xornimada dhinacyada kala duwan marka la siiyo taasi waxay keenaysaa qofka inuu dhiirigelin badan ka helo markaasi kambaniga markaas uu si jeclaaday keenaysaa laakiin haddii qofka xornimo fara badan aan la siinin la cadaadiyo habka loo yaqaan leadership dictatorship-ka lagula macaamilo marka problem ayaa imaan kara qodobka afraad ee muhiimka waxa weeyaan in dadka howlwadeenada shirkadda ka ah lala tashado dad badan oo waxaa jira aqoon ilaahay siiyay hibooyin gaar ah bay leeyihiin waxa laga yaabaa dadkaas inay ka caqli iyo aqoon badan yihiin dadka kambaniga iska leh sidaas darteeda in la tixgeliyo taladooda la dhageysto marka lagu dhaqmo waxyaabaha hor keena ama kor u qaada kambaniga inuu horumar sameeyo laakiin haddii taladooda aan la yeelin markaasi problem ayaa imaanaya culimada qaarna waxay qabaan haddii hogaamiyuhu uusan dadka la tashan gebi ahaanba inuu xilka iska casilo
oo waxay leeyihiin hogaaminta islaamka marka la fiiriyo waxyaabaha basiga u ah waxaa ka mid ah in qofka uu la tashado dadka loo yaqaano ahlul aqli wal ahdi waxyaabaha aadka muhiimka u jirta in markaas qofka uu xoog saaro qodobka afaraad ee asleeyahay muhiim u tahay waxa weeyaan in loo rumeeyo riyooyinkooda aqooneed qofka si kastoo meesha u shaqaynayo kambaniga uu uga howlgalayo riyo aqoon ayuu leeyahay soo aqoontaasi in loo rumeeyo haddii tababar la siinayo haddii waxbarasho jaamacadeed uu qofkaasi uu doonayo oo jeclaan lahaa in loo rumeeyo in markaasi lala garab istaago waayo taasi waxay keenaysaa in aqoontii cilmiga uu soo barto in markaasi uu uga shaqeeyo shirkadda laakiin haddii aan aqoon badan aan la siinin problem ayaa markaa imaanaya qodobka muhiimka ah ee qodobka u baahan la sii fahmana waxa weeyaan qofka markasta oo shirkadda aqoonteeda dadka jooga ay bataan waa markasta oo shirkadaas horumar inay samayso marka ay markaas u fududahay laakiin dadka kambani ka shaqaynaya ee xarunta jooga haddii dhammaantood aqoontooda iyo caqligooda markaa kooban yahay wax soo saarkooduna aad buu u yaraanaya sidaas darteeda furayaasha ugu waaweyn ee markaasi kambaniyada u horseeda in ay horumar sameeyaan waxaa ka mid ah in dadkaasi markaasi la dhiirigeliyo aqoon ahaan sare loo qaado talada xigta in maamulka ama maamuluhu uu u sheego dadka howlwadeennada ah qalqalooca wadada shirkadda waxyaabo ku soo foola baa jira iyo xaalado dhaqaale ama mid amni ama wax kale ha ahaatee marka ay ku sugan tahay sidaas darteeda qofka howlwadeenka ee shirkadda ka shaqaynaya shaqadii asaga loo dhiibay oo kaliya xoog saaraya sidaas darteeda shirkadda kama warhayo dhinacyada kale ama waxyaabaha ku soo wajahan si markaas taasi aysan u dhicin in managerka uu la wadaago dhibaatooyinka shirkadda ka jira iyo mid ku soo fool leh aad bay muhiim u tahay waayo taasi waxay dareensiinaysaa in markaasi qofkan la ixtiraamayo la qadarinayo oo uu shirkadda qayb gaar ah ka yahay laakiin maalintii dhibaato ay imaato haddii la yiraahdo dhibaatadan baa maanta timaaday sidaas darteed mushaarka ay dhibaato ku imaanaya ama shaqadii waa laga diraya taasi waxay keenaysaa markaasi qofkaas inuu niyad marka si taasi aysan u dhicin managerka waxaa muhiim u ah in markaasi waxyaabaha qalqaloocan ee talooyinka ama in uu dhiirigeliyo ama inuu la taliyo ha ahaataba in markaasi uu dadka kale kambaniga ka howlgalaya markaasi uu ku abaabiyo sideedaba hogaamiyaashani waxyaabaha muhiimka ah ay markaasi ku kala hormaraan waa qodobkan oo ah hogaamiyana waa hogaamiye dadkiisa dhiirigelinaya talana siinaya haddii qaldamaan toosinaya isagoo markaas aan cadaadinaynin oo ama markaas aan ciqaabaynin hogaamiyana waa hogaamiye aan qofka talana siinin laakiin qofka ciqaab ama toosin midna aan kala jeclayn oo ciqaab oo kaliya ay xoog saara hogaamiye saddexaad jira oo ah waxba lama socdo asagoo mana dhiirigeliyo waxna ma ciqaabo waa qof moogan oo waxba la socon marka labada dambe inaad noqon baa muhiim ah si markaas shirkadda ay kambaniga markaa ay guuleysato talada xigta ula dhaqan si wanaagsan nolosha boqolkiiba 60-70 qof kasta oo maanta manager ah maalin waxaa jirtay oo manager uusan ahayn sidaas darteeda maalintii aad managerka ahayn waxaa jira waxyaabo fara badan oo jeclaan lahayd in markaas adiga hesho ama habdhaqan ha ahaato ama wax kale ha ahaato sidaas darteeda kambaniga cid ka howlgalaysa wala macaamil sida ugu wanaagsan oo aad jeclaan lahayd in adiga lagu la macaamilo waayo taasi waxay dareemsiinaysaa in ayaguna muhiim yihiin adiguna markaa qiimo iyo ixtiraam iyo qadarin aad u hayso sidoo kale waxay muujinaysaa bani'aadamnimadaada laakiin haddii aad habdhaqan wanaagsan qofka aad kula macaamilin markaasi qofkaasi uu kaa niyadjabaya haddii qofka shirkadda ka howlgalaya uu kaa niyadjabanayo suuq ayaad ka baxaysaa marka history la fiiriyane dhowr shirkadood oo maanta waxaa jira saaxadda shalay ku jira laakiin maanta aan ku jirin waxaa loo eedeeyaa inta badan dadka kambaniga shaqada u qaban jiray ee markaa gudaha u jiray ayaysa si wanaagsan ula macaamilin si marka taasi aysan u dhicinin
wala macaamil dadka sida ugu wanaagsan ugu quruxda badan oo jeclaan lahayd in marka adiga lagula macaamilo. talada u dambaysa ee muhiimka ah waxa weeyaan haddii aad hogaamiye tahay ka taxadar habdhaqankaada, waayo habdhaqankaadu waa waxa go'aaminaya hogaamintaada. haddii habdhaqankaadu uu yahay mid liita, haddii habdhaqankaadu yahay mid qaloocan, haddii habdhaqankaadu yahay mid tayo ahaan aad u hooseysa, intaba natiijadeeda ayaad heli doontaa. haddii laakiin aad noqoto mid habdhaqankiisa ka taxadaraya, ereyuu dhahayo ka taxadaraya, go'aanada uu qaadanayo ka taxadaraya, habka uu dhaqmayo ka taxadaraya, nidaamkiisa ka taxadaraya, it means markaasi wadadii guushaad xooga saaraysa. waayo cidda la hogaaminayo inta badan waxa ay diiradda saaraan hogaamiyaha. haddii hogaamiyuhu yahay qof ballanta yaqaana, haddii hogaamiyuhu yahay qof dabeecadiisu ay wanaagsan tahay, haddii hogaamiyuhu yahay hogaamiye nidaam leh, haddii hogaamiyuhu yahay hogaamiye dhiirigelin leh, qof u dhaqmaya habka ugu wanaagsan, ayaguna waxay u dhaqmaan sida markaa uu hogaamiyuhu ugu dhaqmayo. laakiin haddii aad ballanta ka baxdo, ayaguna beri ballantii ka baxayaan. haddii aad adigu maalin kasta aad cidda aad hogaaminayso aad been u sheegtidni, ayaguna sidaas oo kale beri ka maalina way kugu dayanayaan. sidaas darteeda si marka taasi aysan u dhicin, hogaamintaada iyo maamulnimadaaduna ay noqoto midda ugu wanaagsan ee markaasi natiijo fiican keenta, ka taxadar habdhaqankaada. haddaa habdhaqankaaga ka taxadartidni waxaad gacanta ku haysataa guushaada. waxaan rajaynayaa qodobadaas inaad wax badan ka bedeli doonto. aad baa umahadsantihiin.